Soomaaliya weli waxay xasuusanaysaa urkutaaladii dhacdadii 14 Oktoobar kaasoo ku dhawaad ay ku dhinteen 500 oo qof. Way dhaceen dhacdooyin ka horeeyay iyo kuwa ka soo dambeeyay, laakiin marnaba ma soo marin Soomaaliya dhimasho hal maalin intaasi leeg. Waxaa ka soo wareegatay dhacdada muddo 3 sano ah iyadoo ay dhacday sanadii 2017. 14 Oktoobar qaraxii Soobe. Inta aan muuqaalkiina u gudagalin, like inagu dhiirgeli si ay saaxiibo badan u gaarto muuqaalkan, una sheer garee saaxiibadaada si aan u soo dhaweeyno saaxiibo badan. waxay ahayd xilliga ugu mashquulka iyo saxmadda badan yahay isgooskan Soobe, waxaana xilligaasi lagu qiyaasaa inay ahayd maalin mashquul badan maadaama ay dadka badi u caraawayeen guryahooda. Dad shacab u badan ayaa si maalinla ah u isticmaala waddada isgooska Soobe iyagoo wax cabsiya argagax ah midna aan ka qabin, balse mar qura ayay isbedeshay maanka dad badan oo aan ka dhadhicin in goobtani Soomaaliya tahay markuu dhacay qaraxii weynaa ee Soobe. qiyaas ahaan saacaddu waxay ku beegneed 9:15 oo casarliiq ah. waxay ahayd maalintii koowaad ee toddobaadka Sabti. waxaa goobta ku sugnaa shakhsiyaad ku xamaasha xoogooda, arday iskuul iyo kuwa jaamacadeed, ganacsato ku ganacsanaysa goobta isgooska Soobe iyo dad kale oo meesha safar ku ahaa oo guryahooda u socday. balse goobta sida loo buuxay ayaa mar qura isku bedeshay holac, uuro iyo dhiig. xasuuqii Soobe waa ficil aan la filayn oo reebay naxdin iyo makaag kadib kolkii maalin qura ay dhibaatooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hanti ay gaareen dad badan oo lagu qiyaaso 1809 ruuxood oo ahaa kuwo meherado ganacsi ku lahaa isgooska iyo dad socoto ah oo maraya halkaasi. marka laga yimaado khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka, waxaa ku burburay hanti lagu qiyaaso 6.3 milyan. burburka rafaadkii ay qaabishay isgooska Soobe waa mid ay ka soo kabsatay, balse weli waxa urkutaalo ku ah dadkii ku dhintay goobta isgooska Soobe. intaas ayaa muuqaalkiina maanta ku soo gunaanadeena. Allah u naxariisto cid walba oo waxyeelo ka soo gaartay qaraxii Soobe 14 Oktoobar 2017. haddii aad daawanayso muuqaalkan, like garee una sheer garee saaxiibadaada. mahadsanidin.